isbedelada ka dhacay deegaanka Soomaalida oo lagu jiro labadii usbuuc ee ugu horeeyay hadda waxaan ku suganahay magaalada Jigjiga oo marka aad dhaxmarto dadka ku arkaysa ay kamid yihiin dadka ka soo baxay jeelasha telefishinka Home Cable waxa uu suura gashay inuu la kulmo qaar kamid ah aqoon-yahanada ka soo baxay xabsiyada ee haatan leedha ku qaadanayay iyo xorriyadda magaalada Jigjiga waxayna la wadaagi doonaan qaar kamid ah ama waxyaabo kamid ah tacadiyada ay kula kulmeen jeel ogaadeen oo ah jeelka dhexe ee magaalada Jigjiga halkan ayay ugu la sugan yihiin waxaana ka bilaabi doonaa koonaha أنا مقعي وحالة دها عبد الخضر عبد الله عبدي إلهي بما هذا لمانتي إن معناها أن ليرها خوك قاضنا يو أنا جو مدة أفر سنة أكون حنا حبسي كشيلو قاعدين دباتوين فر بدنا اللي يوسف مريء دباتوين كل يوسف مريء عدان قار كم ذا عن شيء أو حكم ذا وحبي أو درا إن قلير أو سولية أو هوسي سولية هاي استاجنا هذا استاجي كرين تاجني فدنا أنشرين يا الله قلت تاجنا نسين معناها أن كشري مدة أفر بلاد أنا شخصيا كليه muddadaas oo aan qorraxan aan arag sidoo kale xilliga muddada iyada wax biyo nadiif ah ma cabi jirin waxaan cabi jirnay muddada 6 bilood ahaa biyaha gidibka la dhaho oo aad u wasaqsan run ahaantii muddadaas oo aad afka noo dildilaacay dhibaato fara badan ay soo gaadhay waxa lagu sababay xarigaaga hore waxaa la sababeeyay oo lagu yiri waxa taageertay dadkii isbedel doonka ahaa okay in horaan ugu soconaya dhamaan aqoon-yahanada meesha ay ugu la sugan walaalada magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa engineer maxamed mukhtaar intaan meesha ku jirnay waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan wayna soo mareen maanta alxamdulillah hawadan ka cabina magaalada Jigjiga dhibaatooyinka waxyaabahan ka xasuusto haddii aan idin sheego ama waxyaabaha aan aad iloobin waxa weeyaan anagoo muddo 15 maalmood taagnayn oo fadhi iyo chiefna loo diiday taagni kaliya ah cagaha ayna barareen in ay niman mas'uuliyiin noo yimaadeen oo halkaan ugu jeesjeesaan oo dhahaan oo nimankii wali way taagan yihiin midinkaaba ka shaqaystay maxaa loo jajifin waayay wax jiifa maana arkaba dhibaatooyin badan aad wayna soo mareen oo meesha inta aan ku jirnay hadda isbedel ayaa yimiday isbedelkaas waxaan leenahay wixii hore wax ka qaado dibna ina u dhicin arrimihii hore u dhici jiray cadaaladda iyo sinaantan ha laga shaqeeyaan leenahay waxa kale oo cadaalad darrada meelaha aan anigu aad ka yaabay aan ka mid ka ahayd in adiga oo xabsiga lagu wado in lagu murmo oo madaxdii ay ku muranto wax inta sanad ugu xidhi lahaa 15 sano uga dhig 2 sano uga dhig 9 sano uga dhig war 20 sano uga dhig aakhiran kugu shubaynaa ereyada iga soo hadhay waxa weeyaan iga soo hadhay aakhiran kugu shubaynaa iyo ma isa saxdid iyo waxba nabada marin kartid iyo wax luqad gaar ah oo meesha ka jirta oo anigu mantaqantay aan aad mantaqantay uga tacajibay waxa kale in isfeer la dhaho anaga dhaxdanadii oo ilkaas ka daadino oo mantaqantay ruuxi wax feeri waayo qomaati wax feeri waayo asagana balaq lagaga sii dhoo dadka madamaati u daayaysid oo aan la isu turi karin oo anaga dhaxdana la isku fikaarin saxo dhibaatooyinkan soo arkay waxa kamid ah hadda xabsiga anigu hadda masaajid laga dhigaa leeyri waxaan aaminsanahay guriyaha ku yaala waxay dhan 100 guri masaajid hadda laga dhigay xitaa ugu yeelan kara inuu guriyahan isticmaalo oo guriyahan mantaqantay laga faa'iideysto sababta loo leeyahay in la dumiyo laftirkeeda waxaan u arkaa dad badan oo ku duugan inay jiraan xabsiga dhexdiisa oo saxbaal ka jira xabsiga sadarteed in la baaro iyo xabsiga u baahan yahay meesha uu ku yaalo meesha laga duminayo waxaan halkan ku soo koobi karaa ma wixii jeelka ka dhacay isbedelkii aan u xiranay inuu ka dhaco deegaanka alxamdulillah maanta waa uu dhacay halkan aan taaganahay naawdan iyo banaan joog iyo xornimadu macaanka ilaa anaga maanta garanayno waxa batalan waxyaabaha tacadiga ugu badan ee deegaanka ka dhac waxa kamid ah ruux dhibana oo lagu xukumay sanad oo gadaal qalin laga darayo sanad baa 2 sano la xukumi eber baa lagu dar 20 sano ka dhiganta sanad baa la xukumi eber baa lagu dar 10 sano ka dhiganta marka ayaa bedelay qalinka ku daray wax bedelay waa booliska loo geeyay warqadaas ee jeelka geynay marka madaxweynaha waxaan leeyahay cadaaladda noocaas oo uu basically waa in reforms lagu sameeyo judiciary justice systemka deegaanka jira awalan waa in lagu sameeyo saasan qabaa waxaana loo geystay jirdil maskaxeed waxaan soo koobi kara ma marka ugu horeysay meesha lagu geliyo budka kugu bilowda iyo caqabada kugu bilaabata iyo biyaha kugu bilowda iyo bacda kugu bilaabata ayaan 4 sano u dambeeyay marka laga reebo intii ugu dambeysay commissionka cusub hadda la keenay ayaan ku soo jirnay qabowgii la soo dhaafay hadda hidar maskaram ilaa hidar qol cidla ah oo sideedaad ah ayaan jiifo biyo liigu shubayay waan adkaysanaynay we knew waxaan ogeyn one day in isbedel uu imaanayo inaan ka daba tagna halkan uma soo taagnin laakiin dhibaatadii dadka gaadhay
annagu waan nool nahay dad badan baa waxa weeye dadkay jeclaayeen la'aa habeenna annagoona nabad ku seexanin baan garanayaa 3 sano u dambeysay bacaa madaxa la isku gelinayay dad aanan technically garanaynin tortureka ayaa kula soo bixi fuustooyin biyaha lagu dhaamini ninkaygan inta leeg ba inta la qabto la fuuriyo madaxa loo gelini they don't know how seconds iyo minutes aan anigu ma neef baan qaba garan mayaan 2 times baan kooma galay liimada weynin sankii afkan dhig ka keenay ragaana hawanu adkaysanayay ya hooya ay dhashay waxay ku sugnayd ilaahay baa ogaa caafimaad darrada la soo jeed ilaahay wuu dhintay baa liilmana la arkaynin taasi baa la ii dhigay aniga waxa soo dhan waan ka soo gudubnay waxaanan weligay ilaa weynin gabaraan magacayga garanaynin magaceeda aan garanaynin oo meel lagu ciqaabayay meel ku dhow ka qeeliisay oo la hidwo walaalo lambar 8 waxa la yiraahdaa la isku xiraa labadaada suxul baa la isku keenaya xabadkaas lagu istaajinaya sida aniga la galaya gabadha loo galay alla walaalo naasaha iga qaad sibirka ilahayd sibir qabood 7 saac oo habeenimo ahayd gabadha magaceeda ma garanayo laakiin marnaba ilaahu aad iyo aad daawad mahadsan yihiin waxa Ismaaciil Buurgaabo uu ugu dambeeyay aqoonyahankaasi kala duwan ee aad soo dhageysateen arrimaha ay ka warrameen ee ay ku dheeraadeen tacadiyadii xuquuqda aadamaha baalmarsanaa ee ay kala kulmeen xabsiga jeelogaadeen hase yeeshee fariimahooda ugu dambeeyay marka loo fiirsado ay ka muuqanayso inay cafis gudahooda ah ay dareensan yihiin isla markaasina isbedelka cusubna ay raalli ku yihiin taasoo keeni karta inay ilaawaan waxyaabihii soo maray waxaana ay fariin isku mid u direen shacabka waa Cabdishakuur Day Maxamed telefishinka Home Cable magaalada